Bismillah waa Carab Maxamuud Jaamac iyo golaha abwaanada afka iyo dhaqanka shanta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo gaadh shansa. Halkan waxaan kusoo gudbinayaa maanso kooban. Maansadaasoo daba socota silsiladii jacaylka ahayd oo soo furay abwaan qaanso. Abwaano badanina ay ka qayb qaateen. Dhageysi habboon. Inkastaan fogahay oo fidiyaha fariimuhu signalkii fadhiid yahay, fakiskiina iga raag, balse fiinta ciis iyo fiidmeerta duusha fooraha dhex raacdo farxaddii naftayda iyo in farduus la weeraray. iyaduna fagaaraha kama ridin fadeexee ficilada dhacaya kuma sii filaanine fajacayo yaabkii waatay la fiigtee, balse faalka ii baxay ma jacayl firgadayo foofkiisa jiidhaa, maqunbulad fidaysaa fahmi waaye aniguee sida fooridoo kale ii dhaafwaado. inantaan fiyooraha uga doonay fiinland, inantaan faraydkiyo baabuur u fuulay, inantaan fardaha iyo faalka iyo aakaha fooqyada ka dhiibee qalbigayga furataan marna laga furfuri karin. ma og tahay faduul iyo fidmo waa ka dheertuho waxaa tahay farduusaay ficilka iyo diintana mid ilaah u furay ee ma og tahay filkii kacay inaad ugu firoon tahay fidha kuguma duushee fiicnow weligaaba fiicnow. mana tihid qof fudud oo foodaysa aadniga, quruxdana fad soo baxay iyo ubaxa foorara ama faraqa geedaha fanuus baxaya. faralkiiyo salaadaha rabbi uuna faray baa faa'iido keenee fursad yaanay kaa helin cid kastoo fidnada jecel. ku filow jacaylkana amba waanu faydne. waxba yaan u fiirsanee fallaadhaha kalgacalkaa sida foorahoo kale ila sii fogaadaye furayaasha noloshana fahmad baad u leedahay. ducadan ku farayaa mid firaysha weeye, bal u fiirso hadallada. aakhirana fardowsiyo malaa'igaha fiicane halka ay fadhiistaan baa kuu furaashani.